success don't come overnight. Assalamu alaikum. Kolaba alif ba ta ABCD 1 2 3 waanigi Fortune waan soo noqday maalin cusub aragti cusub kusoo dhawo channelkayga hadaad ka hesho confession kan ama confessionahan like ii taabo hadaad rabtid inaad dhiibatid comment kusoo qor aragti saan camal hadaad rabtid inaad aragtid subscribe kali ugu sii maanta confessions again. I like confessions. I enjoy confessions. By the way, hadad dhawaaq maqashin ama hadal maqashin cid bila mishidan jim shadan ma aha ehelkayga joogan balkoonkay joogan way sheekaysanayaan anigana inta YouTube ku duubanaya cause hadal ay free ah marka hadad dhawaaq maqashin waa ayagi confession go koowaad waxay tiri anigu waxaan jeclahay inaan qaniino aan goosto cindiyaha suulasha tiri ee gacmaha markaan jaro waan calaanjiyaa waxaan ku qaatay tiri jeebabkayga saan markaan time u helo ama waqti u helo aan calaanjiyo so cindiyaheeda markay jarto faraha cindiyaha ku yaala iyo suulasha cindiyaha ku yaala markay iska jarto waxay jeceshahay inay rugto ama calaanjiso xarafka saa u taqaanid ama chew af ingiriiska jeebkeedana ay ku qaadato markay waqti hesho macnaha caajisto soo baxsato ee calaanjiso qofka ku xigay confession ku wuxuu yiri anigu waxaan la socdaa nin 2 bilood ee tiri labadaas bilood ee tiri wax kasta oo aan rabo wuu isiyaa anigu kama helo laakiin xiriirku waxaan ugu la jiraaye tiri casho kastana wuu igayaa wax kasta oo aan rabana wuu igadaa waa hada gold green 2 bilood iska cun mar dhow ka joojinayaa qodkiska ma soconayo mugti qofkan kale wuxuu yiri anigu waxaan ku jiraa sanadkii ugu dambeeyay jaamacadda waxay tiri gabarta ila dhalato ilma habreedka aan nahnay lacag laguma lehe tiri jaamacadda deen ma lagu laho dib ma aragto nolosheeda tiri anigi ayada tiri same course baan dhiganaa aniga waxay igaga duwan tahay waxa waaye tiri nin cadaan bee la socotaa familkeedana ma oge tiri waa dhilo aniguna gabar fiican baan ahay marka qaraar aan qabiy xanaaqan qabay tiri waxaan go'aan ku gaaray tiri in aan u sheego hooyadeyda waxaan ku iri tiri heblaayo way dhileysataa hooyaday waxay tiri way baxday waxay u tagtay ayada hooyadeeda waa la qarxiyo waa la kashifay kadibna jaamacadda waa laga joojiyay hadda tiri aniga baa fiican because anigu waan qalan jibinoyaa ayadana jaamacadda way ka tagtay ceeb daraadeeda xasisanida maxaa kaaga shaqo jiro waxay lacagteeda ku heshay waxay u sameynayso xataa qofku waa la waaniyaa waa loo tagaa waxa la yiraahdaa baaya maxaa ka qaldan maxaa saa u sameynay laakiin xaasinimo inta ka qabtid iyo qaraar inta ka qabtid iyo maaragtay competition inta ka qabtid ayada qofkan kale wuxuu yiri 4 bilood oo uur baan leeyahay uurka waxa ii yeelay qof aan la shaqeeyo aniga waxay tiri xaajigeyga ma ogo inaan uur leeyahay uurkaasna uu leeyahay nin kale mana ogo inaan ku jiid gareeyay saasaan ku wadi doonaa insha Allah that means Muslim baa tahay saasma I'm gonna carry on like this inshallah samba ku sii wadi doonaa inshallah markuu uurkayga soo baxo ee tiri oo 5 bilood aan noqdo ninkayga baan ka dhigayaa inuu uurka leeyahay godkiisa bi ugu galeen wallahi umada ilaahay soo hanuunis ilaahana caafiso dhanaa la iska xiran yahay waa la wada waalayaan qofkan dhageysto wuxuu yiri confessions anigu waxaan jeclahay inaan dadka qasab cunto ku siiyo markaan qof qasab cuntada ku siiyo yiri dareen baa igalo waan ku farxaayo yiri qasabka cuntada qofku ku siinayo aniga maana helin uu yiri qof lamaane ah oo saas ii qanci karo yiri oo rabo inaan qasab cuntada ku siiyo marka single aan ahay ilaa hadda waxaan raadinayaa qof aan cunto qasab ku siiyo oo ay farx geliyo oo beecadle heeter wuxuu yiri one time aan meesha ka socota iska hadal stress iska bixi qofkan wuxuu yiri Fortune abay waxaan rabaa inaan kula wadaago sirtaas oo ahayd tiri waxaan la hadlooyaa my best friend's ex saaxiibateeda
ninkeedii horeete ayada maan u sheegin tiri sababtaan ugu sheegin waxay tahay markay isla socdeen zaa'id buu u xumeeyay wuu u xumaa man u sameyn laakiin aniga asaga waan kala duwanahnay tiri aniga wuu ii fiican yahay waan jeclahay wuu i jecel yahay laakiin saaxiibteeda weli maan u sheeganin farxadeeda mana rabo inaan u sheegto farxadeeda iska heeso farxadaada waa ku kaliya ayada kuma farxayso marka farxadaada iska heeso ma bala rabo in la maqlo because waa absolute rubbish umad ilaahay intaasaa niman qalqay joogaan markaasaa saaxiibtaada ninkii xumeeyey ex boyfriendkeedii xumeeyey adiga lover ka dhigatay markaasaa leedahay farxadeeda ma rabo inaa ayada u sheegto because waxaa ogtahay inaa qaldan tahay laakiin yaa ii dirsada anigu waa confessions bartoon qofkan wuxuu yiri confessions abaayo sanad ka hor waxaan guursaday naagteydii labaad naagteyda koowaadna maan u sheegan inaa xaas labaad guursaday labadoodaba waxay isku moodaan inuu ayada kaliya aan qabo labadoodaba waxay isku moodaan kaligood inaan qabo sax anigu wuxuu yiri mideeda koowaad waxay ii joogtaa Mareykanka mideeda labaadna waxay ii joogtaa Beledweyne qofkan wuxuu yiri confessionkeyga waxa waaye hooyaday baan lacag ka xadaa marka koowaad aan ka xado hooyaday way fahantay wayna cafisay laakiin hadda dabeecada iga noqotay markasta hooyaday waan ka xadaa waxaan u maleynayaa inay og tahay aan rabin inay wax ay dhahdo markastaan ka xado waan xumaadaa oo waan caroodaa laakiin ma aha waxaan iska jooji karo hooyaday waxaan ogu yiri sababta uga xadaay waxay tahay inayna ituuri karin because hooyaday way jeceshahay aniguna waan jeclahay laakiin xumaantan iskama jooji karo ilaahay ha ku caafiyo hooyada hadaa ogtahay inay ku jeceshahay waa jooji kartaa because jecelka u qabtid waa inaad aada ka careynin hooyadaada because every time hadaa xadiis waxa ay ogtahay inay ogtahay xumaantaan meesha jirto waxay ku carab badan ay ku qaadaysaa kadib habaar isku bedelaa habaarkaasna kuma fiicno just cause ma hadlayso doesn't mean inaan cariisnin qofkan wuxuu yiri confessions abaayo anigu waxaan jiraa 19 ninkii qabana wuxuu jiraa 20 markaan is guursanaynay waxaan go'aan ku gaarnay inaan caruur isku dhalin muddo 4 sano ah labadeena waxaan ku jirnaa tiri jaamacad full time ah familkiisana wayna saacideeyaan familkeenana wuuna saacideeyaa waa faraxsanahay tiri anigu laakiin ma faraxsani because awlaadaan rabaa inaan dhalo awlaadaas aan dhalay tiri waa ogahay inaan korso karo haddaan xataa waxay tiri aan korso waayay hooyaday diyaar ah inay ilmaha ii hayso oo waxbarashadeeda wato ninkeygana waxay tiri ma rabo inuu warkaas maqlo marka waxaan sameeyaa tiri cirbadaan ku dhuftaa waxa la isku daafaco meaning waxa laga yaabaa uur inay yeelato rafaadkaas oo dadka maxaa marsiinay 2 sano ka hor nin baan la socday oo Nigerian ah ninkaasi aniga waa isjecleen jecelkeen waxaa maleynaya inuu guur isku bedeli doono aniga zaa'id aan u jeclaaday markaasaan markaan isiiyay waxaan yeeshay uurka markaan yeeshay waxaan is eri wuxuu guursan doonaa waan u tagay waxaan eri hebelow uur baan leeyahay wuxuu ugu yiri 3500 waatana sida alaab jajaban lacag buu isiiyay markaasuu yiri isoo kabkab compensationkaaga ka dhigo waxaa sameysaa isoo xaq aniga waqtigaas waxay tiri waan qashuucay waan xanaaqay ma aqoonin waxaan sameeyo laakiin go'aan waxaan ku gaaray waalidiinteeda inaan oola tagi karin uurkan so waan iska xaqi subhanallah wallahi halkaas aan kusoo gabagabeynaa ma sii akhri karno intaas kusoo gabagabeynayna ilaahay dadkan dhibaatada ha ka wada qaado ilaahay hana soo wada hanuuniyo inta dhibka ku jirta ilaahay dhibka ha ka qaado qaraabada lagu salaamo shokina aan ku yiri shokuna my shock I'm actually shocked to the core all night see them on social media type while like said them they studio advice come in never put them up on